السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا نمان الله سوماليد halkan iga daawanaya meel walba oo joogtaan iyo soo wadi maqlaysaan baan soo salaamaya waxaan muuqaalkan doonayaa inaan runtii kaga hadlo aan ku falanqeeyo oo runtii aan si deep down aan hoos ugu dagano dagaalka Siciidani iyo Xasan Sheekh Maxamuud u dhaxeeya oo runtii soo xoogeysanaya isla markaasna ummadii runtii si dhab ah u jahwareeriyay ودجال runtii aynu doonayno inaynu ka qaadano aragti ka duwan aragtiyadii hore aynu ka qaadan jirnay maadaama ay isbedel cusub u dagaalkaani uu la yimid aagag aan filaynin uu ku baahay dib ayaan runtii maalmihii soo dhaafay oo dhan aan arintan u dul taagnaa waxaan rabaa inaan bal aragtida ugu macquulsan oo waqti iyo xoga badan arway ka bacdi aan helay ayaan doonayaa in halkan idin kula wadaago dagaalkan cusub aragtida aynu ka haysano وإنه وحكبد الناس إنه فهنو حسن الشيخ محمود نيكا يراهدو هذا نقبل لونه شخصي أهانتيسا وانبوحا ودوني وحانا هين شاقوي هذا الكاء وشاقيا قولكي بساقاشن وباند أنبياء لمرنين منها إن لقاريو حسن الشيخ وحا وشاقيني باند سيدا درادي وحا ودوني وحانا هين وبانا أيو حسن اسكوتشيحا حان ربيان دور تسالو أنا مركا إذن كتوسو سيد فهنتان waxa sida ka wado tusaale wuxuu leeyahay musuqmaasuqa hal joojiyo aan la dagaalano laakiin Xasan Sheekh Maxamuud asaga u ah aab iyo hooyo waxa loo yaqaan musuqmaasuqa dalka ka jira iyo midka Soomaaliya magaceeda lagu sameeyay caalamka laga sameeyay asaga hooyo aab u ah Xasan wuxuu leeyahay nabad iyo amni baan doonaynaa asaga nabad iyo amni darada ka shaqeynaya al-shabaab ayaan la dagaalamayna ayuu leeyahay laakiin waxa dhacaya dagaalo aad moodid in al-shabaab lagu maxal yiraahdaa naaxinayo laguna siinayo hub ciidankii qaranka oo dhan deegaanka Xasan iyo reerkiisa baa la isugu geeyay ilaa haddana guul lagama hayo guul darro waxaan ahayn wuxuu leeyahay ciidanka qaranka ayaan dhisaya ayuu leeyahay ciidamadii hore ayuu burburinayaa waxaan ayaan dhawaan arkayay dhowr asbuuc ka hor ciidamada qaranka oo soo bandhigay oo aysan ku jirin haramacad taasam careeyta in haramacad laga tuuray liiski ciidanka ciidamadii Eritrea laga keenay waa kuwii aad ogeydeen oo la kala cayriyay ciidan baa dhisayna buu leeyahay ciidankii hore ayaa la burburinayaa ciidamadan daba cusub oo markaa la sameeyay shabaqba mushaarkoodii laga dhigay ciidamadii hore oo gorgor iyo kuwii kale iyo qaranka u shaqeynayay oo dhan iyo kuwii militariga ahana 200 bay wali qaadanayaan taasoo ciidanka moraalkiisa dhibaato ku ah oo burbur ciidan ay tahay marka ninkaasu hadal walba uu sheegayo opposite-kiisa amidka ka soo horjeeda ayuu qabanaya hadduu nabad sheego dagaal doonaya hadduu wanaag sheego xumaan buu sameynaya waa in marka halka uu u socdo iyo waxa uu ka sheekeynayo ay completely kala duwan yihiin ama opposite isku yihiin halka markay joogto Xasan fahano shaqadiisa waxa uu qabanayo ayaa waxaan isweydiin karnaa marka ninka sida ay hadalkiisa iyo ficilkiisa u kala fog yihiin miyaynu aamini karnaa waxa uu Puntland ka sheegayo iyo dagaalka Siciidani ka dhaxeeya miyaynu sida u raaci karnaa nin hadalkiisu uu sida isaga hor imaanay ficilkiisu afka waxa uu Puntland ka sheegayo miyaynu aamini karnaa ma aamini karno tusaale ana misala inuu ka fiirino waxa uu Xasan Sheekh opposite-kiisa inuu ka istaagay wuxuu sheegay Puntland inay burburayso nacqlan ka istaagay Puntland burburayso wuxuu sheegay Puntland inay amni darro ka jirto ama ku imaan karto waa been xukum imaan karaan nacqlan ka istaagayna waxa ay dhabka nacqlan ka istaagto ayaad picture-ka dhabta ay Xasan ayaad ogaan karaysaa ka bacdi marka waxaad weydiinaysaa waa maxay sababta uu Xasan arinta Puntland uu u sameeynayo iyo danta laga leeyahay maxay tahay dhowr meelood baan doonayaa inaad ka tuso markii aan meel badan ka istaagay waxa isoo baxay aragti ah waxa la doonayo dagaalka Xasan iyo ka dhaxeeyay Siciidani iyo hadda soo xoogeystay waa dagaal siyaasadeed oo markaas la doonayo in Siciidani campaign politics loogu sameeyo inuu mar dambe xilka ku soo laabto ayaa laga shaqeynayaa ayaan isleeyahay ama u muuqata way aan saa u leeyahay hoos markay u dagno halkiisa shacabka Puntland hadaynu dhadhamino dhabtii aragtidooda iyo rabitaankoodu ma doonayaan Xasan Sheekh Maxamuud inuu dawladda dhexe u hogaamiyo hogaankiisa Puntland kaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan Xasan ma doonayaan hogaankiisa waa mid qabiyaalaysan waa mid musuqmaasuqaysan waa mid aynu ognahay inuu hor u tijaabinay ma qof cusub Xasan yimaade marka reer Puntland shacabka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin sida daraadeed Xasan wuxuu fahmay in shacabka Puntland particularly
ay si dhab ah u taageersanaayeen madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horay ayuu Siciid Dani warbaahinta uga sheegay in shacabkii lagala wareegay oo ay la wareegay uu Farmaajo kala wareegay sidaa daraadeed marka sida kaliya oo Dani loo jeclaysiin karo reer Puntland u dooran karayaan ayaa waxay noqonaysaa inuu Xasan oo ay nacab yihiin ama aysan jeclayn inuu markaasi uu cadaawad cusub ka samaysto shacabka reer Puntland isla markaasna halka dagaal asaga iyo Dani laga sameeyo shacabka reer Puntland marka ay Dani taageeraan halkaasna uu Siciid Dani ka noqdo new hero ama haliyay cusub oo shacabka Puntland ka difaacay dawladda dhexe iyo dawladda xamar laga soo qaaday markii aad fiiriso waxyaalaha Xasan ka sameeyay xamar wadarkaysa waa wax si ku talagal ah loo sameeyo meelaha aan ka fiirinayna waxa kamid ah sida gudiyada heer federaal haduu yahay midka khayraadka haduu yahay midka sameynta iyo ka shaqeynta dastuurka iyo kuwa kale oo gudiyo heer qaran looga qadiyay Puntland banaanka looga dhigay iyo sida mashaariicdii Puntland ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ka jirtay loo diiday sida ballanqaadyadii Xasan uu ballanqaaday shacabka reer Puntland sidii projectigi ama dhismihii laamiga Garacad iyo waxa la soo koobi karaba waxa ay dhan sida shaqaalaha reer Puntland loo beegsanayo looga cayrinayo shaqooyinka ay dawladda dhexe ka hayaan waxa ay dhan waa cabiifada shacabka reer Puntland baa la kicinaya oo la doonaya in Xasan uu kiciyo si ay Puntland taageeraan markaysa si marka Puntland loo kiciyo kabacdina Siciid Dani uu iska dhigo nin marka u danqanaya dadkiisa iyo deegaankiisa oo difaacaya si marka shacabku ay Puntland taageeraan waxa ay dhan qayb badan oo kamid ah waxa la sameeyay intii Siciid Dani Xasan Sheekh Maxamuud aysan isku dhicin ayaa la sameeyay Siciidna wuu ogolaa markii aad fiiriso sida Siciid Cabdullaahi Dani uu uga falcelinayo markii asaga iyo Farmaajo is hayeen iyo sida uu Siciid Dani wajigiisa uu ahaa iyo dad ku laabto hadaladiisii iyo sida hadda Xasan oo wixii Farmaajo uusan sameey wax ka badan ku sameeyay reer Puntland uga falcelinaya xataa way kala duwantaa waxa soo dhan markii aad isku dardarto fiiriso ma arkaysa marka inay tahay qorshe la doonayo in shacabka lagu jeclaysiiyo Dani isla markaasna la sameeyo waxyaalaha ay shacabka reer Puntland ka gilgilanayaan oo dawladda Xasan ay ku diidayaan ka bacdina Siciid marka laga dhigo nin new hero ama haliyay cusub oo difaacaya xuquuqda qadiyada iyo wixii ay reer Puntland dawladda dhexe marka ay ku lahaayeen nin difaacay noqonaya ta marka waa dhankaasi wana dagaal u muuqda dagaal Siciid loogu sameeynayo waxa la yiraahdaa campaign وصورتك مركي إني دولة الشيء قيب كيس دولة إمارات عربتها هي دولة كله عربت دانو أي تهاي ما دام أي تهاي عربتين نقول عصب عربتش الشيء صوص مية إني تهاي نقال بدن نقول هي إمارات كانوا سوكريين إني تهاي وصورتك قال ما دام إماراتكو يصير بقى وتشعليين سعيدني حسن شيخ محمود إني سقى يعني تشعليين ذاك كلام مركات في رسو دورشلا وان ما وان فوت كا وسعيدني اللي هي حدا سمينا يا نفتركه وعميد قرشيال كله ku hoos jiraan waxa arrinta muujinaya Siciid Dani uu doonayo in reer Puntland gaarsiiyo one man one vote doorasho furan oo shacabku codeeyo mar hore ayuu doorashadaas ayuu sameyn lahaa ma aysan ahayn waqtiga kuma uusan bixiyeen xamar uu raadiyo xil intuu garow fariisto umadiisa dhax fariisto waqti time ku bixiyo ayuu doorashada nooca sameyn lahaa taariikhna uu ka tagi lahaa laakiin markii uu waqtigiisii dhamaaday ama uu gabagabay yahay xamarna ku soo fashilmay halkii sano ugu dambeeyay la marayana in la yiraahdo doorasho one man one vote ama la sameeynaya wadarkaysaana waa arrin aysan dhab ka ahayn waana arrin qorshe uu ka dambeeyo maxaa idaa loo fasiri karayaa iyo maxaa uu ka doonayaa waa aragti furan arrinta doorashada laakiin waxaan aaminsanahay inuu doonayo in Siciid Dani marka hore isku dayo qajajac badan uu sameeyo dhawaan one vote baan sameeynaya umadina hadda waa ku kacsan yihiin wala diidayin markii gacanta laga qabto laga diidana marka doorashadii hore ee naqaanay ee dadbanayd ومركزي أنت كبودو كبعدنا وسدي وحلبانة فدرالك أبوبي ورجع سجى كوكوحة يبوب نوعايا ومركزي وسمايو هالكاسنا وشانس كهلو مدانا ومد ودونيو إنه سجى وابيو أو سكديجو نين وحي الواقع بصدو كله حنكرة ما دام يسمى possible عند الشخص إن حلقة لقبته تبدأ بأي وصل يدونيا إنه بوبو كراستا يحلبانة ده حاليا ده بطلان si markaas halkaas uga soo saarto rag badan oo asaga markaa dooranaya taasina waa politics dhanka kalena wuxuu raay iska dhigo nin hero ah oo difaacaya Puntland iyo qadiyada SSC oo hadda
وبالله إنه كده حكى الله ميستو وحا يودمر كده سوسو كوكوبو دجالك بوتلان إيو كده عصر الدولة ده حق وحا وحسن مساجد ده كتاجي هاي وحا يودن وكامبين عصب الله سمعني سعيدني عمر كلا دون إيو إن حلك اللي جوسو عليو طبعا دولة الشارع ويكشقنا يعني وعرفت عن دون إنه مضى السيو أنت تقصو كوبيا أنت تبي سقصو العبرة إنه عندك كده سيان بدينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.